madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo maanta ka soo kicitimay xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burco ayaa socdaal ku yimi magaalada Berbera waxaan madaxweynuhu maanta xariga ka jaray qaybo cusub oo lagu kordhiyay dekedda magaalada Berbera kuwaas oo lagu kaydin doono ama la dhigi doono konteenarada lagu soo guro badeecadaha kala duwan ee laga soo waarido wadamada dibadda ugu horeyn waxa ka warbixiyay goobta xariga laga jarayay mareeyaha dekedda Berbera injineer Cali Cumar Maxamed Xorxor isagoona sheegay inay tani ka mid tahay ballanqaadyadii uu madaxweynaha Soomaaliland hore u ballanqaaday in horumarin lagu sameeyo dekedda magaalada Berbera isla markaana ay qaybo ka mid ah dhameystireen qaybo kalena ay wali hadsan yihiin qaybtii labaad ee farxadda wajaar qaybtaasi waxaan bilownay 4 bilood 5 bilood ka hor imika 3 bilood ba diyaar bay ahayd bil ba diyaar bay ahayd iyo bad area ay ku fadhidaan waxa weeyaan 22 kilometer square waa inta cusub waa inta inaga horeysa waxa weeyaan 22 kilometer square waxay qaadaysaa 1500 container ayay qaadaysaa marka saddex la isku saarana waxay qaadaysaa ilaa 2000 waxa la madaxweyne ku soo dhawow inaad noo furto mashaariicda amarka ku bixisay waddanka horumarkiisa wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay horumarka ka socda dekedda magaalada Berbera sidoo kale waxa uu beeniyay wasiirku waraaq ayaamihii u dambeeyay lagu baahiyay baraha lagu kulmay bulshada iyo website-da taasi oo sheegaysa inuu isagu saxay in dawladda Soomaaliland ka mid noqoto federaalka dawladda Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah madaxweyne waa shaqadii halka ka socotay inuu doorka hore dhaafnay oo dhameystirantay oo ah sida uu sheegay maareeyuhu dhismo cusub lagu kordhiyay konteenarada waa dadaalkii socday waa markii saddexaad ee dhismo noocan oo kala la furo oo konteenariska loo diyaariyo waxay muujinaysaa madaxweyne inuu wax badan qabsan karo oo dekedeena wax badan ku kordhin karo oo aynu qabsan karo ayay muujinaysaa marxaati u tahay aad baan ugu hambalyeynaa madaxweyne aad baan ugu hambalyeynaa maareeyaha iyo shaqaalaha dekedaba waxaan jeclahay madaxweyne inaan kelmad waxaan arkay maalmahan intaynu ku maqneen safarka iyadoo waraaq been abuur ah oo laleeyahay xamar baa lala xidhiidhayo madaxtooyada lagu qoray aan arkay marka waxaan leeyahay waa war beena oo been abuur ah iyo waraaq forgery waxa weeye dekeduna waa taro waanu ka shaqeynaa waanu horumarin cidna uma daba fadhino muqdishona uma daba fadhino cidna ka bariimayno waa dalkayagii waxa weeye waanu dhisaynaa waanu horumarinaynaa cid kasta oo wax nagaga xidhmaana waanu hor fadhiisanaynaa Soomaaliyana waxay suuqay dambeysay Istanbul iyo maalintii cadeedaanu kala tagnay marka cidda ku warwareegaysa ee waraaqaha forgery ku warwareegaysa waxaan leeyahay qarannimada waxa u dhimina waxaan arkay in dhaweyd bayn waxa weeye hebel baa qoray mucaarad iyo muxaafidba waa waxun in xamar qiimo loo yeelo laga dhigo in loo kala tartamayo qaranka Soomaaliland damage loo geysto iyadoo la isleeyahay qof weerara waxaan leeyahay waa damage loo geysanay qarannimada waana forgery ayaan loo noqonin ugu dambeyntii ayaa waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo isagoona ku hambalyeeyay maamulka dekedda magaalada Berbera horumarka ballaaran ee ka wadaan goobtaasi isagoona kula dardaarmay inay halkaasi ka sii wadaan horumarka isla markaana aanay ka daalin inay ballaarin iyo fidin ku sameeyaan dekedda magaalada Berbera maalin walba dekedda waxba ku kordha maalin walba dekedda waa dekedda ugu weyn waa ismid qaali noogu fadhida terminalka kan iyo containerskan iyo hawstan waxay noogu kordhayaan maalin walba wax fiican weeye marka farxadda weyn bay tahay maanta mashruuca ka furo insha Allah maalin walba intaas weeye Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Somali Cable TV magaalada Berbera